عيسى halkan ku jira waa salaamaya dhamaantiinba waan salaamaya ciise salaan qaali aan salaamaya halkan qolka WhatsApp-ka ciise ku jira aad baan u salaamaya salaanta islaamka bacda salaan ciiso in badan baynu halkan ku wada hadalnay in badan baan wax isniri in badan baan wada hadalnay goorta dad muslimiin aynu nahay dadka muslimkiina waa inay ku xisaabtamaan inay dhimanayaan in aakhira tagayaan in su'aal sugayso cadaab qabri ka dambeeyo in qiyaamo la tagayo waxa oo dhamma diinteena ku taalaa ciiso maalintii horena waad qabsateen markaan sida fiican inila hadlay erini waaniyay in ilaahay ka baqayda niri ragiina Itoobiya ku noolow markaan ka baqay ilaahay niri waad qabsateen hadi qabsatiine waxa weeye faa'iidadii maalintii wixii ka digay oo inagu dhacay dhimashadu maanta ciise waxay sii socotaa waa 150 qof weeyo inta la xaqiijiyo waa 150 148 waa dhaawac hawo u badnaadaan raggii maalintii aan kari lahayn ciidamada Djibouti u badnaadaan booliiska ahaa nimanka halka galay maxaan ku raadayay dagaalka heemaal waa nimanka ciise maaragtay militariga Djibouti booliiska Djibouti u badan bay ahaayeen maalintii hore hadalkayga waad kari lahayd waa raggii aan kari lahaa ragga halka ku dhintay maanta ciise ilaahay ka baqa qabri way maanta ku jiraan ilaahoogi way hortageen su'aala qabri baa sugaysa waxa ku dhinteenna ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga garanaya waxay kaga jawaabayaan haddii baaragtay dhimanayso waa in xaq ku adintaa ilaahay bay igu leetaa culimadii waaweynada Djibouti maanta way aamusan yihiin nimanka ilaahay ka baqa qaal Allah iyo qaal rasuul ragii lahaa ciise ilaa maanta way ka aamusan yihiin arrimahan baadilka oo reer ku wado war baadilka ciise wada joojin weydo wad ku halaagmi hadda waa ajaladii saddex waa markii saddexaad ee WhatsApp-kiina ka soo hadlay way nimanka halka ku jiro waxa weeye ciise halka ku dhimanaya waxa weeye walaalkay oo dhowr arrimood baan ku tusayaa maalintii horena waa neego celiyo aad ka dhaga tirtaan ilaahay baan aniga maaragtay i garansiiyay igu ihlaamiyay in aan idin sheega xaqa ku adima xaqa hatta dacara ka qadaadaaday ciise waxyaabo badan oo been isku sheegaysaan ayaan halkan ka dhageystaa sheekada beenta halkan isku sheegaysaan waxa kamid ah dhulka aad ku socotaan aad ku duuleysaan ciise sidoo ku yeeshay maalintii horena wadikii afkay goostay markaan u taydin sheegay war ciise dhulka hadaad leedahay maxaad u dhisan weyday walaal war ciise hadaad dhulka leedahay walaal maxaad magaalooyin ugu yeelan weyday sida ninka inaabtiga ee abtiyaasha eegada buursi maxaad magaalooyin ugu yeelan weyday ciise walaal hadaad dhulka leedahay maxaad beer ugu yeelan weyday ciise walaal hadaad dhulka leedahay maxaad hantida maguurtada waxa loo yaqaan aad u yeelan weyday walaal magaalada sayrac ee ciise wad beentaan isku sheegaynaan meel walba maanta rag u dhinteen magaalada marka la dhex tago laba guri oo ciise leeyo la seexda kuma yaalo rag ba furaheeda lulay iyaga degan iyaga iskale waad ogtiin isaaq uu og yahay Soomaaliya dhanna way ogtahay waar ka jooga dulmigu ma fiicna ciise war dulmigu ma fiicna ilaahay ka baqa waa magaalooyinka aad maanta duulaanka ku tihiin dhammaan waxa dega reebtigiin baa dega nimankan dagaalka wadina waa nimanka Muuse weeye mamaasan waa ceelaya weeye waxa wada ciisahan kala shacabku bay tumayaan oo xagga Djibouti waa u muuqata laakiin waxaan ku dhimanay meesha waa Muuse mamaasan weeye reergeedii iyo waxa reergeedii nabad buu qaatay oo isagu qolooyinkiis dhalayay waa iskala heshiiyay nimankan la kari laaya waa nimankan kale ee meelaan xagga Itoobiya u soo rogan iyo wixii gudaha Itoobiya degan ee waqtiga roobku doo xoolooga daaqsada dhulka Gadabursiga raabtigo degan yahay waa nimankan ciise halaagaya waa waxoogaa yuruuna oo ceelgaal degan waa afar qof oo horoor ah dhowr qof oo fuurlabaho Cabdulqaadir halka ka gala xadka iyo nimanka reer koolka la yiraahdo oo jufo kamid oo ay iskursadaan nimanka bahawr celi ay isdhaldalaan oo iyaguna xadka buurta ka laama iyo nimankan la yiraahdo odawaaga oo mamaasan oo halka bahawr celi ay ka masaafurisay magaalo yar wada jir la yiraahdo deganaa jireen hadda ka hor markay ninku dileen marka ciise intaas waxa rabtaa inay fidnada idin galiso
inay dhibaatayni geliso nimankii mamaasan waa kuwii hadda ka hor hadal soo duubay ee yidhi annagu haddaan mamaasannahay dagaaldan nooguma jira kursigaa Jabuuti unbaa noo muuqda sidii bayna u dhacday oo tolkeen mamaasan nabad buu ka doorbiday oo ciidina kuma duurin abtiyaashood bay dugsanayaan oo dhulkoogii bay fadhiyaan ay nabad ku daaqaan nimanka la kari laayay waa mamaasan waa muuse weey marka waxaan ciise oo leeyahay ama hadalkaygu haydin damqaama iska daay hadda ciise dhul ku leedahay dhulkanaad ku duulayso maxaad magaalo aad leedahay oo lagugu marti yimaado ood dawladda ku qaabisho adigu yeelan weydo gobolka Salal iyo gobolka Awdal iyo dhulkan aad ku ordayso aad ku dhimanayso maxaad ugu yeelan weydo walaalkayo maxaad ugu yeelan magaalada Lawi Cadde maanta dadka degan 90% waa Gadaburso iyagaana degan weligoodna deganaa jiray nimankaasi magaalada yar tuulada ku jirtay madaxda taqoshi waa sabaro waxa degan 90% ceelasha madaxda iyaga wada leh waxa weey magaalada Zayr laba guri laga heli maayo ciisaha tagaa wuxuu martii jiray barasaabkiina maanta isaaq buu noqday oo meelaad martidaaba ma harin guriga loo dhisay ardayda laga keenay ee shiciya shiniliyaha dhagaale laga soo ururiyay berigii laga dhisay meesha ee iskuulka ku yaal dawladka Zayla kaasa loo hooydaa kaana maalin dhaw la gubi waxa weey ciise dani waxay kuugu jirtaa nabad bay kuugu jirtaa walaal hanti ma guurtii dhulka kaama taalmanaliid nimankan gobolka Awdal baa la yiraahdaa Boorama laga maamulaa min Lawi Cadde ilaa halka Boorama laga xukumaa waa dhulkan iyaga dega abtiyaashin baa dega nabad baad ku daaqayseen markuu roobku doo war ciise tiyoona inuu wadno raabtigeen cid ka fiican ma jirto Jabuuti iyaga inooga soo horeeyo xukumayo jaamac sayrici baa joogayo way nagu wareejiyeen oo abtiyaashood bay u hiiliyeen ilaa maanta wahiilkoodu ku fadhiya mamaasan meesha marka waxa weeye nabad wax dhaanta ciise oo ma jiro aro horena waa idin ku sheegay maantana waa idin sheegaya isaaq ciise Gadabursi iskuma doorsanayo jiritaanka Soomaaliland waxa koow ka ah Gadabursi inuu ka mid yahay isaaqa marka ciise oo ha ku riyoon hana ku seexan habeen kaliya maskaxdaada yay galin isaaqa Soomaaliland jooga Gadabursi intuu ka heeliyo ciise raaci 1988 markii aynu raacnay dee waxaynu raacnay fidnamadayaal kuwan la mid ah ayuu bayna galiyo fidnada waxayna isaaqa kula heshiiyeen Gadabursi inuu iska dhex qaadi oo waynu qaybsanayo qaybna Jabuuti aad ku darsanaysiin Awdal qaybna annaga qaadan tiina way suurta gari weydeen daalimiinahay ilaahay wayna arkayaa dagaalada waa ku jabnay oo hal qof oo ciise muddo 20 sano gobolka Awdal cagaha ma galin ninkii qoorta dheeraa ee daayirayaal markuu maamulka qabsaday ayaynu kula heshiinay oo waa kii baabuur inagu guray dib inoo celiyay maantana ma waxaad rabtaan in sidii oo kale loo soo guro oo inta xariira joogtiyo la soo dhaafiyo xadka inta xoolaha ku dhaqanaysa war ilaahay ka baqa war fidnayaashan Jabuuti jooga ilaahay ka baqa dadkan way dhimanay ciise waxantii oo ka yaal gobolka Awdal iyo degaari ma jiro war ciise haduu karti leeyahay hal xildhibaan buu kula soo bixi lahaa war ciise haduu dhulka dego hal xildhibaan buu ku yeelan lahaa hal xildhibaan awood ku soo saaru waay oo baarlamaan hal xildhibaan oo golo maxaan ku dhahday deegaanadan uu sheeganayo hal xildhibaan oo deegaan male deegaanka golaha sayrac siday ku joogaan waa la wada og yahay oo ninka maanta berbera jooga laakiin intuu yimid ku shubtay ee ilaahay ogaa umadiisuna ogay ciise hay nagu kicinina gobolkan Awdal dagaal iyo joog iyo sarafadhi midna wax kaga qaadi weeyna raabtigeen ilaahay ha laga booqa aakhira la tagayaa ciise galbeedka shacabka inoo tumaya gala hayna waxba inagu kordhin maayo toodii baa haysato oo balahaya galbeed kaga socota marka ciise walaalahayo walaada joojiya dad wada dhashay way Gadabursi ciise waa walaalo abtay isku yihiin guri kasto Gadabursi qof ciise dhex joogo abtiloo yaameynantoodu dhashay guri kasto ciise sidaas lag baa looga helayaa midinantoodu dhasho Gadabursi ama saydiga ama abtigi xolaad maxaad u gelinaysaan umadiina maxaad ugu ciyaaraysaan maxaad fidnada u gelinaysaan walaalahayo ilaahay ka baqa dadka isku soo jeeda war dadka la isku soo jeedo qabri bay naga dambeey war ciise uu daa gardarrada war dhul leedahay kaama horeeyo colaada jooji inta degan cid wax ku haysata male qofka degan ciise cid wax ku haysata male mamaasan si xarragal maanta waa abtiyaashii ula nooliya nabad bay qaateen reergeed nabad bay qaat warinta yare soo hadhay jiri marna galaysa marna soo baxsanaysa marna heemaal rasaarta ka tuurtuuraysa war joojiyayaan maaragta fidnada la sii beerinin waxa weeyaan dam munaafaqshiday ayuu muumin ku gubtaay war waxa weey dhibta ka joojiye ciise 100 goor baan inila taliyay
ama icaaya ama idiida idinka idin taallaa anigu ilaahay baan ka baqayaa waxa weeye dhulka ciise daaqsin buu ku tagaa deegaan kuma aha dhulna kuma leh magaalana kuma leh magaalo ay 500 oo nin ka soo kacdo ciise oo maanta ku taal awdal iyo salal oo cid ku qaabili karta ma ku taal maxaad beenta u sheegi aynu dhulka la yeelano ay guuro anag degna abtigeed aan dhisano magaalooyinka aan iyaga la noolaano kadibna aan cod kaga qaadno annaga la niraah sida ciise oo isa soo ururso oo deg wadanka oo daaradis oo beera samayso laakiin xoolo daaqata ku tagaya mar shigniila mar rabbiki min ra'ayla duura mar waan wareegaya war waxa ciise inama qabatade waa ruuy ilaahay iyo xaq baan ku hadlayaa kii caroonaya carooday idinka inta qolkana waan ka baxay sida ay nabadgelyo inta finnadan iyo balaayadan fuufaysaan ma dhageysan karo wa salaamu calaykum wa ni salaamay walaal ilaahay laga boqo taas aan ku soo gabagabeynaya baadil kara joojiye quruxdii wada noolaasha haddii aanu ka nimi halkan baanu soo marnay runtii beesho aad umay diyaargaroon way kala maqnaayeen laakiin laba oday oo hore isu naqaanay caaqil ibraahim iyo jiw caaqil kale aan ku kulanay geedka aad baanu sheekaysan waxaan ciise